بسم الله الرحمن الرحيم maanta oo ay taariikhdu tahay 8 bishii 7 2024 waxaan jeclahay halkan inaan ka soo jeediyo warmurtiyeed ku saabsan xaaladaha siyaasadeed ee deegaanka Jubbaland ka jira annagoo ah madasha isbedel doonka ee Jubbaland xulufada isbedel doonka ee Jubbaland xulufada isbedel doonka ee Jubbaland waa madal ay ku midaysan yihiin ugu yaraan 10 musharax madaxweyne kuwaas oo u tartamaya xafiiska madaxweynaha dawladda Jubbaland xulufadu waxay u taagan tahay xaqiijinta sidii ay Jubbaland uga dhici lahayd doorasho cadaalad ah oo xor iyo xalaal ah taas oo leh sharciyad lagu wada kalsoon yahay horseedan xasilooni siyaasadeed iyo kalsooni lagu qabo hanaanka dawladnimada Jubbaland xulufada isbedel doonka Jubbaland waxay hortaagneed in muddo ah isku daygii damaca guraacan ahaa ee madaxweynaha muddo-xileedkiisu dhamaaday madaxweyne Axmed Maxamed Islaam oo uu ku boobay hanaankii dawliga ahaa ee Jubbaland taasoo ugu dambeyn 2 bishii 7 2024 uu xaqiijiyay isaga oo ka fogaaday sharcigii lagu dhaariyay xulufadu waxay si cad u diidan tahay wax ka bedelkii la sheegay in lagu sameeyay dastuurka Jubbaland oo ay sameeyeen baarlamaanka muddo-xileedkoodu dhamaaday xulufadu waxay u taagan tahay badbaadada iyo nabad ku soo dabaalidda xaaladaha kala guurka ee Jubbaland hadda ay ku sugan tahay bacdama uu ka dhamaaday muddo-xileedkii sharciga ahaa hay'adaha fulinta iyo sharci dejinta muddo sanad ah ka hor umana baahna hadda inay ka sii shaqeeyaan in la fogeeyo hanaanka dawladnimo ee lagu dhisay isku tashiga iyo dawladhisiinta bulsho xulufada isbedel doonka ee Jubbaland waxay u taagan tahay in la sugo xuquuqda iyo sharafta muwaadinka waxaan halkan ka cadeynaynaa inaan diyaar u nahay inaan la shaqeyno dhinacyada taageersan horumarka iyo nabadda si wada jir ahna aan u ilaalino Jubbaland oo horumarsan iyadoo la ilaalinayo xuquuqda dastuuriga ah ee muwaadinka sida aan wada ognahay 2 bishii 7 2024 waxa ay baarlamaanka waqtigoodu dhamaaday ee sida sharci darrada ah xafiiska golaha shacabka Jubbaland ugu shira ay qaateen go'aan qariska tuurnimo ah kaas oo aan ka shaqeynayn nabadda iyo wadajirka bulsho ee reer Jubbaland cutubka afraad qodobka 7aad cutubka 3aad qodobka 26aad cutubka 1aad qodobka 3aad ayaa dhammaan lagu xadgudbay qodobadan ayaa sugaya muddo-xileedka madaxweynaha iyo sanadaha uu xafiiska joogi karo sida ku cad cutubka 4aad qodobka 7aad cutubka 3aad qodobkiisa 26aad ayaa qeexaya nidaamka dawladnimo ee Jubbaland inuu yahay nidaam madaxtooyo halka hadda loo bedelay nidaam isku dhaf ah oo ka kooban nidaam madaxtooyo oo hab baarlamaani ah una shaqeynaya si isku dhaf ah habkan cusub ee xadgudubka ku ah dastuurka Jubbaland ayaa ka saaraya saaxadda doorkii kurjoogteynta iyo isla xisaabtanka xukuumadda baarlamaanka uu ku lahaa cutubka 3aad ee wax ka bedelka lagu sameeyay ayaa daba marsan cutubka 1aad qodobkiisa 3aad oo qeexaya in dastuurka Jubbaland uu leeyahay kala qaybinta awoodaha sida sharci dejinta fulinta garsoorka oo si cad loogu xadgudbay wax ka bedelkii lagu sameeyay wax ka bedelkii ay sameeyeen baarlamaanka muddadoodu dhamaatay dhamaan qodobadan iyo cutubyadan oo ka tirsan dastuurka Jubbaland ayaa lagu xadgudbay sida aan wada ognahay Jubbaland waxa la dhisay 2012 iyadoo la raacayo heshiis bulsho oo helay kalsoonida shacabka ku dhaqan 3 gobol ee Jubbaland ka kooban tahay heshiiskaas waxa saldhig u ahaa nidaam federaal ah oo awoodaha la daadajiyay iyadoo la sameynayo hab dib u heshiisiin ah bulsho iyo tanaasul garabyadii isku hayay maamulka dhisidda Jubbaland waxay noqotay xubin buuxisay habraaca ka mid noqoshada xubnaha dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyadoo la tixraacay dastuurkii la ansixiyay 2012 ee dawladda federaalka Jubbaland waa deegaan ka duwan maamulada xubnaha ka ah dawladda federaalka ee dhaca koonfurta Soomaaliya cimilo ahaan deegaan ahaan iyo siyaasad ahaan intaba wixii ka dambeeyay burburkii dawladda militariga ahayd ee Soomaaliya 91 Jubbaland waxay soo martay gacmo hogaamiyo kooxeedo aan u tirin shacabka tan iyo markii la yagleelay Jubbaland 2012 mudane Axmed Maxamed Islaam oo ahaa madaxweynihii ugu horeeyay wuxuu xafiiska joogay 10 sano oo sharci ah iyo 1 sano oo aan dastuuri ahayn Jubbaland marna fursad uma helin kobac dawladnimo oo joogto ah iyo adeeg bulsho oo tayo sare leh taasoo loo sababeyn karo caqabado ka yimid dawladda federaalka ah iyo farsamo xumooyin uu falkiyay maamulka Jubbaland maanta iyadoo la tixraacay caqabadahaas waxa laga maarmaan ah in la helo isbedel dhab ah oo horseedi kara horumar waara iyo cadaalad bulsho xulufada isbedel doonka ee Jubbaland waxay u taagan tahay inay hormuud ka noqoto dadaaladaas si loo xaqiijiyo mustaqbal wanaagsan oo dadka Jubbaland ay ku naaloodaan kaas oo keeni kara nabad horumar sinaan iyo cadaalad xigasho sharciyeed
xigashooyinkan ayaa cadeynaya in heshiiska madaxweynihii hore ee Jubbaland uu galay si uu dawladda Jubbaland u hogaamiyo waana loo tanaasulay iyadoo la xeerinayo caqabadaha ka jira deegaanka iyo sharciyada cutubka afraad qodobkiisa 7aad ee dastuurka Jubbaland wuxuu jideynayaa sida soo socota madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku waxay xilka hayn karaan muddo 4 sano ah laga soo bilaabo taariikhda la shaaciyay natiijada doorashada waxaana xilka loo dhaarin karaa 2 jeer oo kaliya labo waa cutub waa xigashada qaybta labaad warmurtiyeedkii ka soo baxay Nairobi 23 Abriil 2020 madaxweynaha Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa saxiixay heshiis ku saabsan muddo xilidkiisa madaxweynaha Jubbaland oo ah inuu u tartami karo 2 jeer oo kaliya iyadoo la tixraacay sida ku cad qodobka 7aad ee dastuurka Jubbaland heshiiskan waxaa loogu talagalay in lagu xalliyo akrnaan siyaasadeed oo ka taagneed Jubbaland oo la xiriirtay dib u doorashadii Axmed Madoobe maadaama dib u doorashadiisu ay hareeyeen fadeexooyin isbiirsaday heshiiskan ayay wada galeen hogaankii isbeddeldoonka ah oo si weyn uga soo horjeeday dib u doorashadiisa aan sharciga loo marin hogaanka isbeddeldoonka ah ayaa ka koobnaa 4 saxiixe oo dhinaca iyo madaxweynaha Axmed Madoobe oo dhinaca heshiiska saddexaad heshiiskii hanaanka doorashooyinka qaranka ee ay gaareen golaha wadatashiga qaran 27 Maarch 2023 farqadiisa A iyo farqadiisa B waxa uu dhigayaa dhismaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo soodimaha oo ah hay'ad madax bannaan oo u xilsaaran dhammaan habsami socodka doorashooyinka heer dawladaha xubnaha ka dawladda federaalka iyo dawladda federaalka si loo hubiyo hufnaanta iyo kalsoonida habka doorashooyinka qaranka Soomaaliya madaxweyne Axmed oo Jubbaland matalayay waxa uu saxay heshiiskaas sida ku cad saddexda xigasho sharciyeed oo dhammaan ah kuwa uu saxiixay madaxweyne Axmed Maxamed Islaam waa kuwa sharci ah oo xiraya damac kasta oo ka baxsan xayndaabka sharciga waxaan ku baaqaynaa xulafada isbeddeldoonka ee Jubbaland waxay si adag ugu baaqaysaa dhammaan muwaadiniinta Jubbaland inay u midoobaan oo ay taageeraan dadaalada lagu doonayo in lagu soo celiyo nidaamka cadaaladda iyo hufnaanta leh nidaam cadaalad iyo hufnaan leh waxaana naga go'an inaan tallaabo adag ka qaadno cid kasta oo isku dayaysa inay carqaladayso horumarka iyo sinaanta bulsho sida dastuurka Jubbaland qabo waxaa si cad u sheegaynaa inaan marnaba aqbali doonin ku xadgudubka dastuurka iyo xuquuqda aasaasiga ah ee muwaadiniinta bulshaweynta Soomaaliyeed iyo dhammaan saaxiibada caalamiga ah ee Soomaaliya taageera dhinaca horumarka iyo dawlad dhiska waxaa loogu baaqayaa inay si buuxda u taageeraan dadaalada lagu baadigoobayo dib u soo celinta dawladnimada Jubbaland iyadoo la marayo hab nabad ah oo xasiloon iyo helidda xal waara oo looga gudbo in sharciga koox gaar ah gacanta ku qaadato xilligan xaaladda deegaanku ay tahay mid xasaasi ah waxaan ku boorinaynaa dhammaan hay'adaha dawliga ah iyo kuwa maxalliga ah inay si buuxda uga qayb qaataan adeegyada bulsho sida caafimaadka waxbarashada iyo la shaqaynta laamaha amniga waxaan si gaar ah loo xusuusinayaa kuwa ku xadgudba dastuurka iyo sharafta muwaadiniinta reer Jubbaland inay tallaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono xulafada isbeddeldoonka ee Jubbaland waxay diyaar u tahay inay ku dhaqaaqdo tallaabo kasta oo lagama maarmaan u ah sharciga si loo ilaaliyo sharciyada iyo xuquuqda shacabka Jubbaland cid kasta oo isku dayda inay wiiqdo dadaalada lagu baadigoobayo nabadda iyo horumarka bulsho waxay wajihi doonaan ciqaab adag oo waafaqsan sharciga waxaana loo aqoonsan doonaa qaswada xulufadu waxay ku baaqaysaa dhammaan shacbiga reer Jubbaland madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre in ay qaataan kaalintooda ugu aadan dhowridda qawaaniinta qaranka xasiloonida iyo nabadda bulsho iyo horumarka dawladnimada guud ahaan Soomaaliya ee Korea xulufadu waxay ugu baaqaysaa beesha caalamka ee Jubbaland ka taageerta xaaladaha bini'aadanimo horumarka dawlad wanaagga iyo dimuqraadiyadeynta inay gacan ka geystaan sidii dib loogu celin lahaa nidaamkii bulshada la afduubay 2 bishii 7 2024 ayna fududeeyaan wada xaajoodiyo arintaas lagu xalinayo bogaadin xulufada isbeddeldoonka Jubbaland waxay bogaadinaysaa ciidamada naftood horeyaasha ah ee Jubbaland kuwaas oo u taagan ilaalinta badqabka muwaadinka dhanka amniga meel kasta oo Jubbaland uga sugan yahay xulufada isbeddeldoonka ee Jubbaland waxay bogaadinaysaa howlgalka ciidamada Jubbaland iyo ATMIS ay hormuudka ka yihiin ee lagu sifeynayo laguna qabanayo goobo cusub oo ay ku sugan yihiin kooxda gabalkeedu dhacay ee Al-Shabaab gabagabo
xulafada isbedel doonka ee Jubbaland waxay sii wadi doontaa dadaalada lagu doonayo inay ku gaaraan himilada isbedel siyaasadeed iyo horumar waara waxaa si cad u muuqata in waqti xaadirkan uu yahay mid xasaasi ah oo u baahan hogaamin adag iyo go'aan qaadasho dhab ah si loo xalliyo mustaqbal wanaagsan oo dadka Jubbaland ay ku naaloodaan xulafadu waxaa ka go'an inay hormuud ka noqoto dadaaladaas iyagoo tix raacaya sharciga iyo qawaaniinta u degan dadka reer Jubbaland xulafada isbedel doonka ee Jubbaland waxay diyaar u tahay inay la shaqeyso cid kasta oo ka shaqeynaysa sidii loo badbaadin lahaa Jubbaland xilligan kala guurka iyadoo aan wax shuruud ah lagu xiray ugu dambeyn xulafadu waxay u aragtaa cawaaqib xumada ka dhalan karta isku daygii baarlamaanka waqtigooda dhamaaday ee uu gadaal ka riixayay madaxweynaha xilgaarsiinta ah ee sharciyan ay meerto ahaan iyo qoonda ahaanba habxileedkiisu u dhamaaday inay sababi karaan falka ay ku kaceen qodobadan soo socda kow colaad sokeeye iyo maamulka Jubbaland inuu wajaho kacdoon bulsho oo aan nidaamsanayn in shacabka Jubbaland iyo beesha caalamku ka aamin baxaan natiijada doorasho boob iyo isdabamarin ku astaysan koox gaar ahna maamulato iyagoo danahooda ka dhaxarka saddex in nidaamkii dawladnimo uu waayo sharciyadii aqoonsiga shacabka waxgaradka iyo siyaasiyiinta doonaysa dawlad ku dhalata si sax ah oo waafaqsan dastuurka Jubbaland afar in kooxaha xagjirka ay ka macaashaan aanada iyo tabashada ka dhalata boobka iyo ku tagrifalka dawladnimada Jubbaland haddaba waxaan soo jeedinaynaa xulafadu waxay soo jeedinaysaa in ay dib uga laabtaan kooxdii sheegtay inay bedeleen dastuurka Jubbaland maadaama Jubbaland hadda marayso isgoys khatar ah loona baahan yahay in loo midoobo sidii Jubbaland ay uga gudbi lahayd waqtigan adag labo in gabi ahaanba sidoodii loo daayay qodobadii wax ka bedelka la sheegay in lagu sameeyay maadaama kala diridda xubnaha baarlamaanka ay ku beegan tahay bisha 8aad ee sanadkan 2024 sharciyanna aysan qiil u haysan baarlamaanka muddo dhamaaday inuu bedelo dastuur deegaan doorasho galaya xulafadu waxay soo jeedinaysaa hogaanka dawladda federaalka ah inay qaataan kaalintooda ugu aadan ilaalinta sharciga iyo dhowridda xuquuqda muwaadinka qodobka ugu dambeeya xulafadu waxay soo jeedinaysaa xafiiska unsum qaybtiisa Kismaayo inuu fududeeyo wada hadallo looga gol leeyahay xalinta gaboodfallada uu geystay nidaamka seeragoyska ah uu kula kacay sharciga waxaan jeclahay inaan sii raaciyo tacliiq yar oo la xiriira deegaankan iyo xaaladiisa amni iyo doorashada muddo 3 bari ka hor ah waxaa jiray sidan oo kale urur siyaasadeed degan oo beeskiisu yahay magaalada Kismaayo inuu warmurtiyeed ka soo saaray xaaladda doorashooyinka iyo amniga deegaanka Jubbaland iyagoo ku baaqay in la helo doorasho loo siman yahay kuna dhacdo si nabad ah lagana wada qayb qaato waxa kale oo ay ururkaasi sheegeen inaan marna la aqbali karin in lagu galo doorasho nidaamkii ay ugu xadgudbeen dastuurka baarlamaanka muddo dhamaaday sanadkii 2023 bisha 4 waxa kale oo ay ururkaas jecelahay inaan ku bogaadiyo ku dhiirashada ay ku bilaabeen in iyagu deegaankooda jooga ay tabashadooda si nabad u gudbiyaan ayna ka qayb qaataan ayna diyaar u yihiin inay ka qayb qaataan doorasho loo dhan yahay oo ku dhacda si nabad ah ayna loona fududeeyo si wada jir ahna loo fududeeyo in doorashada deegaanku ay noqoto mid guuleysata marka waxaan jecelahay ururkaas inaan bogaadiyo waxaan kale oo jecelahay magaalada dadka jooga iyo dadka maqan ee reer Jubbaland ee siyaasiyiinta intuba inay deegaankooda yimaadaan lagana qayb qaato dawladnimo la wada leeyahay si loo dhiso Jubbaland la wada leeyahay waxa muhiim ah marka lagu jiro xaalad doorasho waxa iman karta tabasho waxa iman karta caqabado la xiriira nidaamka doorashada iyo jadwaleynteeda waxa iman karta kalsooni darro dhanka doorashada iyo gudiyada doorashada oo la magacaabayo waxaan halkan ka cadeynayaa marka maadaama baarlamaanku iyo madaxweynuhuba aysan lahayn awood sharci ah in aysan jirin wax ay gaar u magacaabi karaan oo xubno gudi doorasho ah gudiyada doorashada waxa muhiim ah in laga wada hadlo annagana aniga shakhsiyan iyo kooxdaydan waxaan ogolnahay inaan wada hadalladaas qayb ka noqono akhyaartiiga horeysay ee amaano qaran laftigooda oo siyaasadeeda oo Kismaayo degan waxay qeexeen inay laftigoodu yihiin dad nabadna ku raadinaya isbedel kana qayb qaadanaya maaragtay exercise gareynaya awoodooda dastuuriga ah sidaa darteed waxaan jecelnahay inaysan imaan ama aysan dhicin wax gaar loo qoofasho oo loo hagaagsado
maadaama xaaladaha amniga ee deegaanku uu yahay mid aad u sarreysa marka la fiiriyo dagaalka lagula jiro nimanka la yiraahdo shabaabka iyo sidoo kale dee xaaladaha doorashada oo isjiid badan iyo rafasho badan ka bilaabato waxaan jeclahay inaan kusoo gabagabeeyo warkayga muwaadiniinta reer Jubbaland meel kasta ay joogaan inay xaaladan u midoobaan ay deegaankooda magaalada Kismaayo yimaadaan ee looga arrimiyo isbedel cid u baahan halkan ay soo xaadirto doorashada waxaan idin xaqiijinaynaa in aysan dawladda iyo baarlamaanka waqtigooda dhamaaday waxa ay leeyihiin intay gaar u la baxaan aysan banaanka waxba ku samaysan karin waad mahadsantihiin wabillahi tawfiiq